Okay, assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada khiyaarta insha Allah. Maanta waxaa rabaa inaan liin tuso dadka Hindida, Pakistaamiinta iyo Bangladesh sida internetka u shaqeystaan. Aan rabaa inaan liin tuso. Marka waa kana okay, YouTube galaynaa. Marka fiiri kuwa waa Bangladesh. Dadkan u jeed Soomaha dumarkan kulli waa gabdho internetka ku jiraan, kulligood internetka ka shaqeystaan. Soo jeedid yaa dadka way ka ganacsadaan, meel ayay furteen oo sida oo xafiis oo kale, computer ayay dhigteen, yaa maxaa la dhahaa miisas ayay dhigteen. Marka ganacsi ay ka dhigteen. Soo jeedid tababar ayaa laga bixiyaa, dadka la baraa sida internetka loo shaqeysan lahaa. Soo jeedid kuwaan oo dhan waa Bangladesh. Halka hadda akhrisid soo jeedid Bangladesh internetka ka shaqeystaan kulligooda waa kana. Marka aniga tababarkeygii waxaan barayaa sida oo bilaawi lahayd, meesha aadi lahayd, meesha gali lahayd, website-ka gali lahayd, xirfada yeeshi lahayd, waxaan dhan ayaan barayaa tababarkeygii. Marka kuwaan xirfad ay leeyihiin, waxaa la yaabaa tan inay ahaato web design, website ila soo bisa laga yaabaa. Tan waxaa la yaabaa ilaa macnaha qoraalka ku dheertahay. Tan waxaa la yaabaa logo iyo waxaas ila sameyso. qof kasto inta fadhiyo xirfad ayuu leeyahay. Soo jeedid marka iskuul ayay ku jiraan, cashir ayay ku jiraan. Soo jeed waa la barayaa sida internetka loo shaqeysan lahaa ayaa la barayaa. Marka laakiin hadda horumar la gaaray, horumar sare ayaa la gaaray. waxa waaye macnaha iskooladan oo macnaha oo dhismaha dhexdiisa ku jiro waa laga tagay. iskoola internetka la galay hadda yaa aqoonsiga iskoolaadka dhan internetka waxa laga dhigay. hadda tababarkeygii yaa Somali Business Academy internetka ayuu ku jiraa. marka kan waa dadka Bangladesh. mid kale aan tusinayaa kan waa India. soo jeed yarkan Hindiya, wadanka Hindiya ka imaaday. Sketching and drawing and painting formally. It was marka yarkan Hindiya ayuu ka imaaday, wadanka Hindiya ayuu joogaa, internetka ayuu ka shaqeystaa. waxa waaye si badan ayaan dhahay internetka waa laga shaqeysan karaa. dadka waxa waaye lacag ay ku yeesheen. dadkan Hindiyada iyo Pakistaamiinta iyo Bangladesh yaa taajiriin ayay ku noqdeen, internetka ka shaqeystaan. laakiin waa ila ahaataa qof shaqeysatid. hadda caajis loo tahay, lazy tahay, oo qof shaqeysanayo tahay, oo dibadda wacaysay 50 isoo dir, yaa oo Mareykan wacaysay 100 isoo dir, ama Ingiriiska ama Yurubta wacaysay 20 isoo dir dhehaysid, horumar ma gaaraysid. qof hadda barinaysa maalin kasta baris hadda ku jirtid, horumar ma gaaraysid. qof shaqeysanaya iska dhig. soo jeedid internetka waa laga shaqeysan karaa. dadkan oo internetka ka shaqeystaan. soo jeedid mid kale aan tusinayaa. kuwan oo kale ayagana waa Hindi. maxaa yeelay duniga dadka ugu badan yaa waay Shiinaha, Hindiya, Soomaali. marka Hindida aad iyo aad ay u tiro badan yihiin, meel kasta ayay joogaan. marka internetka fahmeen sida loo shaqeysto, internetka ayay fahmeen. marka kana fiirinayna kuwan. soo jeedid dadkan 40 qofood kulligood yaa internetka ayay ka shaqeystaan. marka soo jeedid laptop ay ku jira. soo jeedid laptop kale ay shaqeystaa. waqti badan aan dhahay hadda laptop leedahay oo internet leedahay yaa waa ka shaqeysan kartaa. soo jeedid ay ka faa'iideysanoo internetka ku jira, internetka ka shaqeysanoo. soo jeedid maxaa ku diiday adiga? marka maxaa ku diiday? hadda garanaynin, hadda caawis u baahan tahay yaa anikaan caawinayno. tababar ayaan diyaarinay yaa tababarkaas ayaa ka qayb galaysaa. yaa waxa waaye tababarka lacag bilaash ma aha, lacagtiisa aad u yar yahay. hadda waxaa lagu jiraa soona lagu jiraa. marka lacagta waa la dhimay, raqiis ayaa laga dhigay. qof kasta wuu awoodaa. qofka uu damacsan yahay inuu horumar gaaro oo shaqeysto, yaa qof shaqeysan hadduu yahay oo rabo noloshiisa inuu bedelo, tababarka diyaar uu yahay. waad baranaysaa sida uu shaqeysan lahayd internetka. mid kale fiirinayna yarkan asina wuxuu ku socdaa kuma qorna halkan, laakiin yaa internetka ayuu ka shaqeystaa asina. soo jeedid website-daha oo freelancer-ka ah. tababarkeena dhan waan tusayaa. website-ka aadi lahayd, yaa account sa samaysan lahayd, sa bilaabi lahayd, xirfada yeeshi lahayd, kulli waa tababarkeeni si fiican ayaa
u faahfaahinay soo fiican ayaa u sharaxnay yaa diyaar ayuu nin yahay. yarkan soo ma jeeda internetka ayuu ka shaqaystaa asigana. marka waa la wareysanayaa sida internetka ka shaqaystay iyo horumar gaaray oo lacag badan ka qabsaday ayuu ka hadlayaa. maxaa yeelay luqada ingiriiska luqadiisu ku hadlayaa marka ma fahmayno, laakiin waa kaasaa iyo kuwan oo kale soo ma jeedid. kan waa Pakistan, wadanka Pakistan soo ma jeedid, halkan uu qoran yahay. meel ayay yeeshteen xafiis oo kale, meel oo maktabad library oo kale ayaa la furtay, computer la wada dhigtay, kulli internetka lagu jira, internetka laga shaqeystaa soo ma jeedid. internetka lagu jiraa, internetka laga shaqeysanayaa yaa. marka maxaa adiga ku diiday qofka hadduu dadaalo oo shaqeysanayo horumar ayuu gaaraya yaa, noloshiisa isbedelayo. marka waa kaasa waxaan rabay kan inaan ii tusaaraway yaa. internetka waxaa ka jiraan faa'iido badan ayaa internetka ka jiraan. marka kanaan rabay inaan ila socodsiiyo oo ni dhiirageliyo oo xoog ni yeelo yaa, saa micnaa horumar u gaari laheedeen. maxaa yeelay anaka Somali business.info halkan waxaa u joognaa sida dadka Soomaaliyeed oo caabi laheen yaa, sida dhaqaalaha Soomaaliyeed kor u qaadi laheen, sida shacabka Soomaaliyeed yaa oo micnaa oo gacan u qabi laheen, oo garab sii laheen, oo tababar sii laheen si u shaqeystaan kulligooda naqdaan dad shaqeysanayo. marka haddaa babaqaysid oo cabsanaysid yaa, iyo waxaa oo dhahaysid micnaa tababarka magalaa iyo lacagta yaa cishana camal yaa, lacagta ma bixinayo yaa, sidaa ahaanaysa meesha ayaa taagnaanaysaa soo ma jeedid. weligaa meesha ayaa taagnaanaysaa, horumar ma gaaraysid yaa. marka aqoonsiga waa muhiim. dadka jaamacadda aadan soo maahan, aan waqti kasta waan dhahaa kan waa kusoo celceliyaa. dadka waxay aaminsan yihiin jaamacad iyo college iyo yaa university iyo waxaasay aaminsan yihiin. kulli waa isku mid, jaamacad, university, college kulli waa isku mid, kaasay aaminsan yihiin. markii oo ka qalan jibiyaan oo dhameeyaan maxay waa shiid, shaqo la-aan ay taagan yihiin yaa, shaqo la-aan ayay taagan yihiin, shaqo ma haystaan. marka ka waran haddaa xirfad bari lahayd, aqoon fiican oo wacan haddaa baranaysa maanta oo aad ka shaqeey kartid maanta yaa, ka waran. marka waa kaasa hadalka anigu badinin yaa. tababarkeeni hoos ayaa ku dhufanay Somali Business Academy yaa. marka ka qaybgal yaa, waxa waaye micnaa anakaa ku caawinayno, gacantaa kaa qabanaynaa, su-aal kastaa leedahay kaa jawaabeynaa yaa. micnaa waa hubsanaynaa in aad shaqo heshid soo fiican ayaa ku caawinaynaa ilaa tababarka ka dhamaystirtid oo shaqada gashid oo aad shaqaysid yaa. la socona ki dadaalka ayuu ku xiran yahay yaa, dadaalka ayuu ku xiran yahay. hadda qof shaqaysanayn haddaa tahay, qof horumar rabin haddaa tahay yaa, qof haddaa tahay oo micnaa caajislow ah oo lazy ah yaa, waxa waaye maku caawi karno, sorry we cannot help you, maku caawi karno. waa ila ahaataa qof oo micnaa oo horumar rabo oo shaqaysanayo oo rabo in noloshiisa loo bedelo. haddaa tahay tababarkeena la soo qaybgal waa ka faa'iidaysanaysaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.